saxaafaddu aan lahaan jirin ayaad moodaa muddooyinka dambe inay kusoo biireen oo saxal baad moodaa inuu saxaafadda soo dhex galay saxalkaana waxaa loo baahan yahay in saxaafadda laga sifeeyo oo ay si iska tiraahdo haddii kale waxa weeyaan aaminkii saxaafadda lagu qabi waa dhimanaya qofka suxufiga inuu wax qoro xaq buu leeyahay waxa uu qorayaana wax run oo sugan oo uu hubo inay ahaato laakiin ma aha inuu diradiraanimo ka shaqeeyo oo uu dadka afka isku geliyo been ku soo afufo isagoo markaa dana kale oo kale wax dhacday markaa in had iyo jeer marka qofku wax yiraahdo ama nin suxufi wax qoro waxaad arkaysaa rag u ordaya cidii wax laga qoray amba wax laga sheegay oo cararayo u tagaya oo markaa dabeedna wax beena ku akhriyay oo iyagoo markaa wax kaga doonaya halkii ay ahayd haddii ay iyagu markaa fikir qabaan amba ninkan suxufiga wax qoray uu khaldamay inay iyaguna qoraal ku jawaabaan kaliya laakiin inay u shaqeeyaan suxufi iska dhigaan qalin qaataan marna ay dadka iska hor keenaan af oo sidii af mishaarnimada lagu shaqeysto waa laba dhaqan oo isqaban karin oo kala duwan oo kala fog waayo midna wuxuu arkay inuu sheegay midna dawaa ninka ku shaqeysanaya afka midna waa ninka hadii qalinka ee runta oo been iyo kamarada ee been ka dheertahay ya aba cod ha haato radio iyo TV ha haato amba qoraal ha haato markaa runtii anigu waxaan ka digayaa war saxalkaas xaafadda soo galay ee haddii aan ku rooyahay mar walba inta wax aan jirin la boonbooniyo oo qofkii kale bini'aadamka halka la geliyo oo dad kale oo waxba u geysan afka loo galinayo war dhaqankaas xaafaddu ha iska dayso oo wixii ay hayso ee run ah ha qorto laakiin diradiraanimo saxaafad shaqo kuma laha waana wax yaani xaaraan ka ah marka anigu waxaan leeyahay runtii dadkuna ha iska jiraan dadka noocaas ee waxyaabaha dadka sidaa isugu diraya oo rag badan oo mas'uuliin hore noo way lugooyeen imikana qaar ganacsatay lugooyay been ku akhriyaan marka waxaan leeyahay war iska digtoonaada ninka suxufiga wax doonaya markuu wax ku sheego waxa tiraahdaa qor waxa doonayso amba ordo hadaro sheeg ilaa adaa ogaan uu ku yiraahdo ninku waayo qof kale moota war kama hayo marka waa in arrimahaas waa arrimahan leeyahay marka had iyo jeer laga digtoonaado waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay hayna waafajiyo wax xasan بسم الله الرحمن الرحيم أبين السلام على أمور الدين أرتو مالتي يقول رئيسي أنا وصحفي يدي أنا صحافة سي أديك سدو كنت هنا دم بيوكلفتي وحيوكلفي وح نبأ أو أنا أركب يوكلفي تاسو ميت أنا جاي صوص عميسي أو سيدا إمك عبد الله وشاقي وياني صحافة دي أيها وحكو صوب بيري حبدغن ضد وطا حبدغن عصب أو هري لوجو أقولني صحافته هدي يدو دليل يسوي هدي يدو خلط كده افتيمين يسوي هدي بالشدة عد لو خلطمي أو إنسيشون كو خلطمي أي صح يسوي قليل بلسكو سحشري لكن إمك حبدغن عصب بلامي حبدغن ورشاكا بلامي وورشاكو أو هبل با هبل هو وحكا قري هبل با هبل هو كدم بيد وحكا قرتي يدو الله استعماله يمركها مقع بير أو أنشرين أو ومد اللي يو إن لوجو كبادو for example قرا شيء شرايد ما تقبضتي waxay kaga hadlaysay in daahir cali soo la yiraahdo oo website leh oo la sheegay inuu daalayaar wax ka qoray runtii shirkadda daalayaar waa daalad waxa weeye shirkad wadaniya oo Soomaaliland laga leeyahay wax badan oo soo qabatay Soomaaliland cid jeclaysanaysa in lagu gafo ma jirto oo suxufiyo reer Soomaaliland ama Soomaaliba hase ahaatee markay khaladkaas oo kala dhaco haddii ay kalifto inay saxaafaddu erga ka gasho arrintii oo ay sulux gasho oo arrintii dhamayso dee waxa qurux badan in si sharaf leh lagu galo oo arrintii la beeniyo oo la dhex galo nimankiyo chance la siiyo ciddii lagu gafay oo la yiraahdo iyana ay ku hadasho oo warbaahintu ay keelkii lagu caayay lagu beeniyo oo website-kii baahiyay beeniyo ama journal-kii qoray beeniyo balse imika waxa moodaa in mashruuc laga dhigtay ama waxyaabo bay saxaafaddu iftiimin jirtay golayaasha xeedajintu sameeyaan oo la yiraahdo hebel wuxuu sameynayaa hebel dhaameel baa loo daadiyaa hebel mashruuc buu wataa hebel waxyaabo noocaas imika saxaafadii moodaa inay ka dhex dilaaceen dad waxa ku shaqaysanaya dad baa ku hadlayay Soljan ay nin gudoomiyaha jiray Mandeeq oo xilkiisii dawladda uu hayay hanan kari waayay at least aan oran karo qiyaamo ku sameeyay
isagoo institution ka tirsan ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdee waxa muhiima inaad mabda'aaga ku adkaysato haddii aanad ku adkaysan karayn inaad banaanka ahaato guddoomiyaha maandeeq buu ahaa wargeyska xukuumadda dawladdu ahaa haddana dawladdu dhaliilaya oo ceebe ka sheegaya taas maaha dee wax runtii waa nin iscaayey waa nin gurigiisii ka warramay haddii uu isku garan waayo qofku waa inuu resign gareeyaa oo iska taga oo yadaa fikrada noocaasa dartood kuma jiri karaya meeshii laakiin waan joogaya bariiskaan ka cunaya shidaalkana waan ka qaadanaya gaarigana waan ka wadanaya nin markaa shaqadiisii ka been sheegay oo khiyaameeyey inuu cid kale cambaarayo oo yidhaahdo hebel baa caynkana daahir calasow baa caynkana daahir calasow waxaan qabaa labada nine hadlayba inuu uga lexa jecla badan yahay somaliland intuu usoo qabtay umay soo qaban maandeeq markuu shiina guddoomiyaha ka ahaa one day muu tegin laascaanood daahir calasow muqdisho ka yimi hargeysa muu laascaanood buu tegey fararnaakiyoo dagaalkii socduu tegey ninka kale ee isaguna ku hadlayay magaca suxufiyiinta isaguna waa saas ileen haddaba saxaafaddu beel duday iyo gabar duday maaha oo xaal la bixin maayee haddii libel ninkaasu galay waa in sharciga loo maraa daana airlinena sharciga u martaa oo wixii ay magdhow u leedahay lagu soo oogaa ma difaacayno daana airline daahir calasow laakiin in saxaafaddii shaar laga dhigto awal beelaha hebel baa lagu khalday baa laodhan jiro saxaafaddo koox ama reer ama deegaan baa qaban jiray xaal baanu bixinaynaa odhan jiray iminka saxaafaddii baa maraysa xaal baanu bixinaynaa taasuna waxyaabaha qiimo darrada ay kusoo kordhayso saxaafaddii waayahay waxaad moodaa in labadiinaba hadalkiinu meel wada jeedo bal marka calaa kulli xaal karka maxaa idinka keena runtii waad mahadsan tahay horta waxa weeye sababta keentay waxa weeye waxaa jira waxyaabo aan iminka ka wareen ku lahaa saxaafaddu hadday de wax sheegayso inay amba kamarada ku sheegto amba qalinkeeda ku sheegto amba dee war ku sida duntaa ku sheegto si iyadu hadba waxay adeegsanayso inay adeegsato laakiin maaha in masalan anigoo kale inta saddex reerkayga afar reerkayga la soo kaxayo la idhaha wayab naga qabta amba curud naga qabta taasaa dhacday da haddaba taanu ka hadlaynaa waa taa madan iyo ku daro madano waa runtii waxa kulanka naga keena waxa weeye marka dembi aanad ahayn lagu saaro waxaad xor u leedahay xaq u leedahay inaad istifaacdo munir abusute waa managerka daalael in hargeysa jooga dad baa anigu I don't know waayo waan ogahay inaanu isagu warka hayn dad baa u tegay oo ku yidhi curad iyo baa ka dambeeya wayab waxaa daahir calasow soo abaabulaya websitekiisay ku difaacaan website kaloo qaran news bay ku difaacaan journaalkay ku difaacaan waxyaaba noocaasa runtii waxaan leeyahay war dadka noocaasi waa dad aan saxaafaddana sharaf ku lahayn bulshada waxay u gudbinayaana aan lagu kalsoonaan karin maalin walba waxay qoraan wax laybaloo cid bay ku gafaan maalin walba cid bay ku gafaan oo shaksi bay sharaftiisa meel kaga dhacaan cidi maxkamadu ma furto cidi dacwadu ma furto way ku qawlaystaan waxaan taaganahay dadka noocaa dadka usoo abaabulaya ee maran habaaminaya ummadda bulshadu wararkoodana kuma kalsoonaan kartay ha ka digtoonaato oo bulshadu wararka ay warbaahinta ka qaadanayso ama ka akhrisanayso ha iska shaandheeyaan oo warar lagu kalsoonyayo sources leh ha ka qaataan oo ha ka akhristaan oo ha ka iibsadaan waaya waxaynu la wada soconaa inay xubnahani xubintaa daahir calasow idinkoo carabka aad ku dhufateen ay aada u cambaareeyeen miyaad ka soo horjeedaan cambaarinta daahir calasow oo aad difaacaysaan idinku daahir calasow waa shaksi institutionku war buu qori karaa warkaasu khalad wuu noqon karaa gef wuu noqon karaa meelka dhac wuu noqon karaa daahir calasow iyo daana airline waxay dhexdooda inay iyagu ka xaalaan baan ugu daynaya si shaksiyay u dhaleecayeen bay idinku miyaad difaacaysaan anigu shaksiyan ma laybalka ma wixii gefe ku caddaaday uu shirkaddaa ka galay ya anigu ku dhaliili maayo ku ammaani maayo wixii uu shirkaddaa ka galay waa khalad baan leeyahay hortiisana oo kale dariisana oo kale haddii ay ku caddaato waa dembi uu ka galay shirkadda anin ku daro madalow adigu waxaan umaleeyaa tababaro badan oo soo gashay website-ku ma xaq ma yahay wax laga qaato daa ninka website wax ka qaatay markaa taasi waxay la tahay su-aashaasi waa iska caddaado suxufina waad garanaysaa horena waan uga hadloo waa sheegay